بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحلقة نيكو بيتبناد تحنه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حلقة وحين عوان وقد جينا فساد النظر إيش أو وحلا الله فسادك أي سميسا ينكو إيجينا يدو إلهي إليه سبحانه عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وحد كتير هذا كو إلهي الرميي إنه ده الله بين يارق جودا xubinkooda tarankana ha xifdiyeen sidaas ayaa u taskiye badan ilaahayna waa og yahay waxa ay samaynayaan mar kale ilaahay waxa uu leeyahay ayadaynu dhowr jeer soo marnay xalaqaadkii hore yaclamu khaa'inata al-acyuni wamaa tukhfi suduur ilaahay waa og yahay xogogaal buuna u yahay ishu waxa ay khiyaanayso laabuhuna ay qarsanayaan rasuulkuna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh alcaynaani tazniyaan wa zinaahuma annadar rawaahu muslim labada indhood way zinaystaan zinadooduna waa eegmada ay eegayaan wuxuu ilaahay xarimay mar kale wuxuu suubanuhu yiri sallallahu alayhi wasallam kutiba ala ibn adam nasiibuhu min az-zina ibn adam zinada nasiib buu ku leeyahay mudrikun dhalika la mahala waana gaarayaho waa ku dhacaya zinadaas markaasuu nabiga wuxuu yiri fal aynani zinahuma an-nadar zinada labada indhood waa eegmada marka qalbigu waa zinaystaa indhuhu waa zinaystaan dhaguhu waa zinaystaan labada indhood zinadoodu waa eegmada weeye ابن القيم رحمه الله اسنا وحو ليهي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس اجمدا شيء حاران كا ايكتي وسن إبليس ومارتي ليب مسمومة ليب سميسن او إبليس ومارتي جنا يوي والله يلمحين لو جبها هي مرك هذين النصوص تاس فهني وحين ورانا مرك كوبات النظر بريد الزنا ووحي زنا ووسائشي الزنا اللي جو جاري يوي إلهنا واتن إليه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزنا ده هو دوانين أبو إله إليه هاي وحوي وفاحشة ما الله هذا أيضا أيا قدرا الزنا ده أولو دواد مركا وحاكم إذا إطلاق البصر إن ده هذا أيسكسي دي سنادان ومال الله ماشي مارتي أي دونان بقات كو إيكتو النظرة مركا أول طريق وهي إن مال حرام كا إيكتو أنكو بنانين وطريقي أقوه الريي الزنا ده يحمانتا يقلب مدوباتك كل حلسينيسي ويه وانا بدرة الفتن وفتنadu meeshay ka askumaysay ama ay ka abuurmaysay bidra waxa la yiraahdaa xabada dhulka la galiye beertan soo saarta ayaa la yiraahdaa marka koobaad waxba kugu soo dhacaya fikrad baa imanaysa shahwadii iyo rabitaankii baa imanaya go'aankii baa imanaya zinadii baa lagu dhacaya marka sida awgeed bacdu salaf waxay yiraahdeen rahimahumullah as-sabru ala qadd al-basar aysaru min as-sabri ala alami ma ba'da inaad marka hore ishani waxa ay doonayso inay eegto inaad ka celisood ku sabirto celintaasi aad ku sabirto oo aadan eegin ayaa ka fudud inaad u dulqaadato xanuunka uu leeyahay eegmada wax ka dambeeya eegmada iyada ah ciqaabta iyo xanuunka iyo cadaabka ka dambeeya iyo qalbi madoobaadka iyo taacada oon kugu dhadhamin sidaan u tegi doono inaad u sabirta waxaa ka fudud inaad marka horeba aragtidaada aad xakamayso oo aad indhaha laabto cibaadadaasna aad ku sabirto nabiga calayhi salaatu wasalaam علي بن أبي طالب وحكو يا علي لا تتبع النظرة النظرة علي يو إيجمدا هكراعين يعني هاي استبدلين إيجمدا وإنها مال حرام كاها كفيقين فإن لك الأولى وليست لك الآخرة مد هراء وحق هذا مد دنبنا أدوكم مليهد بمعنى مد هراء وحاوية أدوكم كنت لقلين بيكادي عكرتا أما مد اللباد هو قان أدوكو أدقادي وهي والقرار هو المسؤولية قان قرار كان أما قان كان waa mas'uuliyad adiga marka lagu weydiinayo weylada ku talagalay qodobka labaad walaalayaal kayfa taqtulu al-ma'siyatu ruuha as-siyam ma'siyadu siday soonka nuxurka uga dilaysaa iyo dhadhanka qala alayhi salatu wassalam rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash mid sooman badana oo soonkiisa gaajo iyo oon ma ogi wax kale aan ka faa'iideynin idan nabigu wuxuu noo sheegay qof ooman oo maaratay gaajaysan oo boglaalan oo bishima qallalan oo rafaadsan oo soonkiisa oon iyo gaajo ma ogi aan wax kale ka faa'iideynin waayo ruuxdii waxaa ka dishay macsiyada xantii baa ka dishay eegmadii iyo aragtidii xaaraantayd baa ka dishay wahaakada maxaa yeelay soonku walaalayaal ma aha cuntada oo laga afaysto un bal waa imsaakul jawaarix xubnahaadu inay soomaan weeye indhahaadu waa inay soomaan dhagahaadu waa inay soomaan qalbigaadu waa inuu soomo baaqi aljawaarix waa inay soomaan soonku wuxuu u baahan yahay in aragga la ilaaliyo annadratu alxaraam tudfi'u nuura alqalbi eegmada xaaraamta ahi nuurka qalbiga ayay kaa dilaysaa bal u fiirso qowlu llahi tabaaraka wa tacaala kallaa bal رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران بافولي قلوب تودا وحونا أفولي وحي أي كسبدين دنبيجي كل عيين إيا إندهودي أي ميل والبا
ay ku sii daynayeen ay ku eegayeen ayaa nuurkii qalbigaa dhintay deetana raan baa fuulay annadra almuxarama marka waa nuqdatun sawdaa cala alqalbi qalbiga marka uu xumaan uu sameeyo dhibic madow ayaa bar madow buu yeelanaya hadduu ku celiyana mid labaad mid saddexaad mid afaraad mid markaasi boqolaad ilaa qalbigii marka dambe raan uu ka fuulo labo eegmada xaaraamta tuuritu alwaxshata bayna alcabdi wa rabbihi waxay ku dhaxal siinaysaa inaad adig iyo rabbigaa kala fogaataan saa daraaddeed bay bacdu salaf waxay lahaayeen innii la acsi illaaha fa araa dalika fii khuluqi daabatii wa mra'atii ilaahay baan caasinayaa oo gaf baa iga dhacaya ilan ibni aadam baa tahay deetana qofkii waaba loo digayaa oo salafkii waxa weeye way ictiraaf bay markiiba la iman jireen ilaahay baan caasinayaa deetana cisyaankii iyo dembigaan sameeyey raadkiisii gaadiidkayga iyo xaaskayga ayaan markiiba ka arkaya qodobka saddexaadna wuxuu noqonayaa nadrada ama eegmada xaaraamta ah tudcifu alkhushuuca wa xalaawat ataaca khushuuca salaada iyo taacadu inay kuu dhadhanto ayay kaa daciifinaysaa waa kii ibnu taymiya laha caleyh raxmatullah almacaasi tudcifu alqalba can iraadati alkhayr macaasidu qalbiga waxay ka daciifisaa oy taagdarro ku keentaa qalbigu inuu khayrka doono qofka qur-aanka uma macaansanayo see qur-aanka uu dhadhansanaya qalbigu ishii oo meel xaraama eegaysa qodobka saddexaad walaalayaal wuxuu noqonayaa qadu lbasari cibaadatun qalbiya in indhaha la laabo oo lagu dadaalo waa cibaado qalbiga laga sameeyo weeye dalika azkaa lahum waanagii soo marnay sidaasaa u maaragtay daahirnaan badan ay atharu liquluubihim wa anqaa liarwaaxihim weeye atharu liquluubihim wa anqaa liarwaaxihim sidaasaa quluubtana u tahaara iyo nadaafad badan arwaaxdana u dhowrsoon oo nadiif ka dhigaysa nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna yaa ii damaanad qaadaya labadiisan lafgareed waxa u dhexeeyo carabka ah iyo wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood waxa u dhexeeyo xubinka taranka ah admanu lahu ljanna labadaasi waa fasaad oo dhan meeshu ka bilowda weeye waxaana u ah waardiye u ah labada indhood marka labada indhood haddii ay meel kaste lagu sii daayo waxa weeye xubin taranna ma dhowrsanaanayo carabna ma dhowrsanaanayo qadu lbasar waa jihaadun khafiyun oo aysan dadku ku arkaynin weeye laakiin samada laga arkaa ayuha alaxibatu fillah mobaylkaada ka tirtir sawirada qaaqaawan ee aan kuu bannaanayn inaad fiirsato maqaaticda iyo waxyaabaha aan habboonayn ka tirtir mobaylkaada waxyaabahan musalsalaadkan iyo filimaantan lagu soo harqiya social mediaha qalbigaaday dilayaan daacaday kuu diidayaan aakhiradaday maaragtay ay shataarayaan ka fogow bisha ramadaan waxaasoo dhan waxaa weeye qur-aanka ilahay bay kaa leexinayaan ilahay taacadiisay kuu diidayaan rabbina subxaanahu wa tacaala qalbigaada ayuu arkaya ina alsamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ayuha alaxibatu fillah soonku waa madaraso soonku waa dugsi tababar weeye indhaha oo la laabana waa darsiga ugu horreeye soonka aynu ka baranayno weeye marka ilahi subxaanahu wa tacaala aynu ka baqno indheheennuna aynu ilaalinno dhegaheennana aan ilaalinno ilahayna aan dhahno samicnaa wa atacnaa hadday waxaynaga dhacaanna aynu istikfaarta ku dadaalno biidni illahi tabaaraka wa tacaala oon ilahay u noqonno wajazakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu